ujeedka sheekada. Qaar ka mid ah cashirada ugu fiican ee nolosha waxaa laga bartaa xaaladda aadka u adag. Asalaamu calaykum. Waxaa jiray nin hantiilo ah. Waxa uu dhalay wiil aad u caajis badan, jecelna inuu mar waliba iska ciyaaro. Balse aabbihii wuxuu cunugiisa la rabay in uu noqdo qof mas'uul ah, isla markaana shaqaysta. Wuxuu rabay in uu ka dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay shaqada. Maalin ayuu u yeeray ku yiri, maanta waxaan kaa doonayaa in aad baxdo oo aad shaqayso. Haddii aad guuldareysatana ogaataa in aadan caawa guriga casho ku lahayn. Balse cunugii yaraa ma uusan caadaysanin weligii in uu shaqo qabto. Codsiga aabbihiisna aad ayuu walaac geliyey. Isagoo aad u ilmeynaya wuxuu u tagay hooyadii. Hooyadiis markay aragtay cunugeedii oo oynaya aad ayay uga xumaatay, waxayna siisay shilin dahab ah. Fiidkii markii la gaaray, aabbihii wuxuu wiilkii weydiiyey waxa uu soo helay. Cunugii isla markiiba shilinkii dahabka ah ayuu odayga gacanta ka saaray. Balse odaygii wuxuu wiilkii ku amray in shilinka dahabka ahaa uu ku rido ceelka. Odayga oo ahaa nin aad u khibrad badan, wuxuu fahansanaa in shilinka dahabka ah wiilka uu ka soo qaaday hooyadii. Maalintii xigtay, odaygii wuxuu askiisii u diray magaalo ay degnaayeen waalidkii. Wuxuuna sidoo kale cunugii ku amray in uu wax un keeno, haddii uu ku fashilmana aanu raashin afka saari doonin. Maadaama ay hooyadii baxday, wiilkii isagoo mar kale oynaya ayuu u tagay walaashiisa, taasi oo u naxariisatay, siisayna shilin rubi ah oo ay iyadu lahayd. Odaygii markii uu wiilkii weydiiyey waxa uu maanta soo helay shilinkii rubiga ahaa, ayuu mar kale odaygii farta ka saaray. Aabbihii wuxuu wiilkii ku amray in uu shilinkii ceelka ku rido. Wiilkiina sidii la amray ayuu sameeyey. Odaygii oo sida aan horey u soo sheegnay ahaa qof caqli badan, waxa uu ka dharagsanaa in uu wiilkiisa shilinkan rubiga ah isaga soo shaqeyn. Wuxuuna isla markiiba inantiisii u diray guriga sodohdeed. Mar kale ayuu wiilkiisii ku amray in uu baxo oo uu wax un keeno, isagoo sidii caadadiisa ahaydba ugu hanjabay in uu guriga cunto ku lahayn haddii uu ku soo hungoobo amarkan. Maadaama hooyadii iyo walaashii waa hore laga fogeeyey, wiilkii maskiinkii ahaa markaan wuu waayey qof caawiso. Wuxuuna ku qasbanaaday inuu suuqa aado oo uu soo shaqeeyo. mid ka mid ah dadkii suuqa dukaamada ku lahaa ayaa wiilkii u sheegay in uu siin doono 2 shilin haddii uu boorsadiisu u qaado. Ninkii hantiilaha ahaa cunugiisa ma uusan diidi inuu hawshani qabto, wuxuuna hawshii dhammeeyey isagoo daal iyo dhidid badani ay ka muuqdaan. Lugihiisa waa ay gariirayeen daal awgii, qoortiisa iyo dhabarkiisana waa ay cuncunayeen. Sidoo kale dhabarkiisana waxaa ka muuqday calaamadda boorsadii weyneed ee uu xamaalay. Markii uu guriga ku soo laabtay habeenkii, 2 shilin ee uu soo shaqaystay uu aabbihii tusiyey. Odaygii wuxuu ka codsaday wiilkii in uu 2 shilin ceelka isaga tuuro. Canugii oo argagaxsan ayaa isla markiiba oohin afka furtay, waana ay ka dhaadhici weyday in uu lacagtii uu soo shaqaystay ceelka uu ku tuuro. Isagoo murug iyo oohin isku darsaday ayuu yiri, aabe, jirkeygii oo idil waa uu cuncunayaa, dhabarkeygana waxaan ka dareemayaa xanuun zaa'id ah. Adigana waxaad i weydiinaysaa inaan lacagta ceelka ku tuuro. Aabe, jirkeygii oo idil waa uu cuncunayaa, dhabarkeygana waxaan ka dareemayaa xanuun zaa'id ah. Adigana waxaad i weydiinaysaa inaan lacagta ceelka ku tuuro. Odaygii hantiilaha ahaa waa uu dhoola cadeeyey, wuxuuna wiilkiisii u sheegay in uu qofka xanuun uu dareemayo oo keliya marka uu waayo lacag ku soo shaqeey si aad u adag. Sababtoo ah xilligii hore wiilka waxaa saaciday hooyadii iyo walaashii, sidaas daraaddeed wax xanuun ah kuma aysan. Wiilkii hadda waxa uu xaqiiqsaday qiimaha ay leedahay shaqada adag, waxaana uu aabbihii u ballan qaaday in aanu mar kale noqon doonin wiil caajis badan, ilaalin doona hantida uu aabbihii leeyahay. Odaygii wuxuu wiilkii siiyey furayaashiisii baqaarada, wuxuu u ballan qaaday in uu hagi doono noloshiisa inta ka dhiman.